Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Banoda Media waxay halkan idinku soo gudbinaysaa barnaamijyo kala duwan. Banoda Media haddii aad member ama xubin ka tahay waad mahadsan tahay, haddii aadan member ka ahayn fadlan nagu soo biir. Hore waxaan ka hadalnay barnaamijka sumoobidda cuntada oo sidoo kale loo yaqaano cudurka cuntada ka dhasha. Waa cudur ay sababaan cunista cuntada ama cabitaanada wasakhaysan ama fasaqaysan. Ka fiiri channelkeena Banoda Media. Maanta barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay sida loogu hortagi karo sumoobidda cuntada. Dhegaysi wacan. Sidee loogu hortagi karaa sumoobidda cuntada? Diyaarinta iyo karinta cuntada si habboon ama dhowrsan waxay kaa caawinaysaa in aad ka hortagto sumoobidda cuntada. Sumoobidda cuntada waxay kaa dhigi kartaa in aad si xun u jirato ama u xanuunsanto, xaaladaha qaarkoodna waxay noqon kartaa dhaawac halis ah ama dhimasho. Barnaamijkan waxaan kaga hadli doonaa waxyaaba tixgelinta mudan oo loogu hortagi karo sumoobidda cuntada sida dhaqida gacmaha, diyaarinta cuntada si dhowrsan ama sida ugu habboon, cuntada kulul, cuntada qabow, nadiifinta, kontaroolka ama xakamaynta cayayaanka iyo xoolaha. Dhaqida gacmaha si loo yareeyo khatarta ka dhalan karta ama ka imaan karta wasakhaynta ama fasaqaada cuntada. Waxaa loo baahan yahay in gacmaha iyo faraha si hufan loogu dhaqo biyo diiran oo socda iyo saabuun. Goorma ay tahay in aad gacmaha la dhaqdo? Markii aad ka soo noqotid musqusha, kadib markii taabato cuntooyinka cayriinka ah, kadib markii aad diifsato, kadib markii qashinka arooriso, kadib markaad taabato dhegaha, sanka iyo afka, sigaar cabidid kadib marka jikada ku soo noqoto, kadib marka la taabto xoolaha, iyo goor walba oo gacmahaagu wasakh yihiin. Si hufan u qalaji gacmaha marka aad dhaqdid. Dabool boogta iyo caabuqyada gacmaha haddii ay jiraan. 5 talaabo dhaqida gacmaha. 1. Gacmaha oo la qooyo. 2. Saabuun lagu dhaqo. 3. Si fiican loo rugo gacmaha dhexdooda, gudaha faraha ilaa kore ama booranka gacanta. 4. Biyo nadiif raacsiyo. 5. Ku qalanji istiraasho ama mandiil. Diyaarinta cuntada si ammaan ah ama si dhowrsan. La soco talooyinkan fudud ee maaraynta cuntada si loo yareeyo halista sumoobidda cuntada. Ha diyaarin cunto adigoo xanuunsan ama jiran. Hubso in cuntada aysan dhicin wakhtiga ama taariikhda loogu talogalay. Feeri wax khatar haddii ay ku jiraan cuntada. Hilibka, doorada ama digaaga, cunta badeedka waa in la daboola oo si gooni loo dhigaa, laga fogeeya cuntada karsan ama cuntada diyaarka. Dhig cuntada karsan fareejka kor meesha sare, tan cayriinka meesha hoose si aysan u dhicin isu gudbinta bakteeriyada cross contamination. Isticmaal maacuun nadiif ah sida saxuunta, digsiyada iyo weelalka si loogu hortago wasakhaynta ama fasaqaada cuntada karsan ama mida cayriinka lagu cuno. Hiro dhar nadiif ah ama gambaluus nadiif ah. Biyo ku dhaq khudaarta ama faruudka oo cayriinka lagu cuno. Si fiican u kari cuntada, gaar ahaan hilibka, digaaga ama doorada, ukunta, cunta badeedka, hilibka shiidan, laham, mindiga iyo wixii la mid ah. Cuntada haraaga ah, cun muddo 2 maalmood gudaheeda. Cuntada haraaga ah si fiican u kulay ilaa qaac ama uun ka soo baxo. Cuntada kulul si looga hortago ku sumoobidda cuntada kulul. Hubso in cuntooyinka kulul ay kulul yihiin in ka sarreeya darajada 60 degre sentigarade. Ku haya cuntada kulul darajada xaraarada 60 degre sentigarade ama wax ka sarreeya ilaa laga isticmaalo, laga cunayo ama fareejka fareesarka laga gelinayo. Si fiican u kulay marka aad rabo in la cuno. Cuntada kulul horay fareejka ha galanin ilaa ay ka gaarayso darajada xaraarada 21 degre sentigarade muddo 2 saacadood. Cuntada qabow si looga hortago ku sumoobidda cuntada qaboob ah. Cuntada qaboob ah sida ugu dhaqsaha badan u geli fareejka. Ku kaydi cunto qaboob darajada xaraarada 5 degre sentigarade ama wax ka hoose. Cuntada barafka ah, freezing foods. Cuntada ku jirta fareesarka waa in ay ka hoysaa darajada xaraarada minus ama in ka hoosayso 15 degre sentigarade. Nadiifinta. Marka la nadiifinayo maacuunta ama qalabka cuntada lagu kariyo, tirtir si fiican u nadiifi meelaha cuntada lagu diyaariyo sida miiska. Ku dhaq biyo diiran, kulul iyo saabuun. Ku raacsi biyo nadiif ah. U oggolow waxyaabaha inay hawada ku qalalaan haddii suurtagal tahay. Isticmaal dhar qalalan haddii aad degdeg u rabtid in aad u qalajiso. Ha isticmaalin dhar ama istiraashada gacmo lagu galajiyo si aad u galajiso galabka ama maacuunta.
Xakamaynta cayayaanka iyo xayawaanka ka yareey xadgudubyada ay keenaan cayayaanka iyo xayawaanka adigoo ku kaydi cuntada weel xiran ama daboolan. Ka hortag in cayayaanka soo galaan meelaha lagu kaydiyo cuntada. Ha ugu tagin cuno ama weel wasakh ah ama cunto hara ah miiska korkiisa, isla markaana ilaali nadaafadda jikada. Ka ilaali in xayawaanka iyo cayayaanka soo galaan jikada. Xir dulduleelada guriga ama jikada. Isticmaal suntan lagu dilo cayayaanka ama xayawaanka sida jiirka ama dooliga haddii loo baahdo adigoo dhigayso meel ku habboon oo carruurta ka fog ama khatar ka imaan karto. Mahadsanidin. Barnaamijka maanta intaas ayuu ku eg yahay. Sidaas iyo nabadgelyo. Waxaa soo diyaariyey Awes Sheikh Muxyidiin Amin ku takhusay maaraynta cilmiga caafimaadka Environmental Health Management. Cilmiga deegaanka Environmental Science Management of Pollution. Adeega guud jaban Low Cost Infrastructure.